إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إخواني وأخواتي في الله، إلهي سبحانه وتعالى قرآنك سوحوا كل يهي إن الشيطان لكم عدو شيطانك وحو إذنكو يهي عدو فاتخذوه عدوا إذنكنا كدكت عدو. إلهي سبحانه وتعالى قرآنك سوحوا كل يهي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطانك وحو إذنكو يهي عدو إذنكنا كدكت عدو. سيداسي إلهي سبحانه وتعالى شيطانك وحاكمدا وضرد دتك كردو وسواسك وحيابها دتك بدن كودي أصو مرأياء وسواسك. إخواني وأخواتي في الله، وهايدين سينا يا تلماموين كاسو ايدنك شيطانك aad kaga hortagi kartaan udaradiisa. Shaydaanka udaradiisa waxa kamid ah in qofka ku rido waswaaska, qofka weysaqaadka cariiri geliyo, salaadii uu dukan waayaba. Sababtoo ah marka weysaqaadana shaydaanku wuxuu ku leeyahay lugtaada si fiican maadan u dhaqin oo farahaaga wasaq baa ku jiro, biyaha aad ku weysaqaadanaysa ma aan kuwa daahira oo ku leeyahay. waxaad arkaysaa maanta oo dhan asuu kugu soo celcelinaya hadal oo ku leeyahay soo xasuuso wixii mar hore ka tagay saaniyeel salaada ka dukan weydaba. waan ku hayaa marka daawadiisa udurkaasi waxa udurkaasi wax walba isku dhaharumaysan haduu ku dhoo salaadada lama aqbalin waxa tiraahdaa weligeed la aqbalin. haduu ku yiraahdo weysaqaadkaaga qalad ah weligiisa qalad ha ahaadane. haduu ku yiraahdo wax walba amal aad sameeyay laga aqbali maayo waxaad ku tiraahdo weligeed la aqbalin. haddii aad sidaas sameeyso waad ka guuleysanaysaa, laakiin haddii aad u raacdo hadaladiisa waxa dhici karta maanta oo dhan inuu kugu soo celiyo weysada oo salaadii jamaa ku dukan weydaba. marka hadaladiisa ha raacin. ikhwaani wa akhwaati fillah, hadaladiisa yaa raacin shaydaanka. shakiga oo ficilka bacdigiisa ahaaday waxba ma saameeyaba. markaad weysa qaato kadib shakiga asigu kugu beeray waxba ma saameeyaba. marka dib ha u fiirinin. haduu ku yiraahdo weysa qaadka khalad waay, khalad ha ahaadade. haduu ku yiraahdo markaad weysada aad bilaawayso bismillaah madhin weligeed aad dhihin ka soo hadaa dib u fiirso waxa dhici karta inuu ku waswaasiyo oo ku shaki geliyo oo salaadii jamaa sidii kugu dhaafiyo. marka hadaladiisa ha fiirinin. shakiga oo ficilka bacdigiisa ahaaday oo markaad ficil sameeyso kadib shakiga si kugu beerayo waxba ma saameeyaba. marka dib ha u fiirina. ikhwaani wa akhwaati fillah, shaydaanka cadow ayuu nagu yahay adow aan ka noqono si ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa noogu bayaaniyay oo yiri inna ash-shaytaana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. shaydaanka cadow ayuu idinku yahay idinkana adow ka dhigta. ikhwaani wa akhwaati fillah, shaydaanka cadow ayuu doonayaa inaan adkaaraha aan joogtayno. markaad guriga galayso adkaaraha loo jeedo adkaarta akhriso. markaad mususha galayso adkaaraha loo jeedo adkaarta akhriso. markaad jiifanayso adkaaraha loo jeedo adkaarta akhriso. markaad cuntada cunayso adkaaraha loo jeedo adkaartaas akhriso. markaad masaajidka aad galayso adkaaraha loo jeedo adkaarta akhriso. wax walba ficil kasta aad sameeyso adkaaraha loo jeedo adkaarta akhriso. haddii sidaas aad sameeyso ma noqonayso mid hogaamiya shaydaanka, waxaad noqonaysaa mid hogaamiya Allah subhanahu wa ta'ala. walaaliyaal, ikhwaani wa akhwaati fillah, ha noqonina mid hogaamiya shaydaanka, noqdo mid hogaamiya Allah subhanahu wa ta'ala. ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu su'aashanayna qolkeena ka ugu dambeeyay ka dhigo annaga iyo waalidiinta iyo muslimiinta dhamaantoodaba la ilaaha illa Allah muhammadur rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam.